والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقسمها جودة هيئة الشغالها هي أقسمها جودة برنامج كشغال قرن أقسم واحد يدا سراكيش عيدا كا مرتشرفتا صحافة يدمان أرضي كشرتا في عدة أفراد الشغال قرن محمد كسلام سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii sharaf bay tahay maanta iyo farxad iyo rayn inaan idkala soo qayb galno tababarkan maalinta socday ee ku saabsanaa xeerka shaqaalaha dawladda xeerkaasi oo la yiraahdo xeer 97/2022 oo si gaar ah iyo si guud uga hadlaya hay'adda shaqaalaha qaab dhismeedkeega iyo barnaamijyada ay qabato si gaar ah uga hadla shaqaalaha guud ee qaranka xeerkaasi runtii oo kamid ahaa xeerarkii dhawaan ansaxay dhaqan galay inaad idinkuna nasiib u heshaan inaad noqotaan shaqaalaha soo socda ee lagu tababaray xeerkan runtii anagana sharaf bay noo tahay hay'ad shaqaalahan runtii aadna waan ugu faraxsanahay waana u mahadnaqayaa runtii tiimkii waaxda cududa horumarinta shaqaalaha ee soo agaasimay soo diyaariyay runtii abaabulkeedii iyo alooskeeda lahaa mudane agasime madal runtii aadna loogu soo dhaweeyay oo aanu ka aragnay farxad wajiyo qurux badan dhalinyar aqoon iyo waayaragnimo runtii aad u gundheer ay ka muuqatay weydiimahoogii ay ka muuqatay sida ay uga qayb qaadanayeen tababarka anigana filashadeedii ahayd markii aan imanayay barnaamijka shaqo qaran oo ahayd markii koowaad ee aan halkan imaado inaan ku arkay runtii wax ka duwan filashadeedii oo ka qiimo badan oo runtii aan ku amaanayno uguna mahadnaqayno madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland abaabulkii iyo fikradii uu ku dhisay ku abaabulay yani shaqo qaran runtii waxyaabo fara badan bay qaranka u soo jiiday oo horumara agaasimaha guudna runtii aan aad ugu amaanaya muwaadinka oo dadaal iyo tacab badan ba runtii galiyay madalo fara badan oo aanu shirar badan kaga qayb galnayna runtii lagu amaanay oo lagu xusay kaalinta uu runtii kaga jiro laba tusaale aan doonaya markaan idin la wadaago oo runtii muujinaya arintaas wasaaradda waxbarashada kor baa u kacday waxbarashadii dawliga ahaa runtii iskuulaadka dawliga ah waxbarashadooda kor bay u kacday sanooyinkii u dambeeyay gaar ahaan iskuulaadkii iyo degmooyinka iyo tuulooyinka taasi waxa ay qayb ka ah ardayda shaqo qaran tacabkii ay galiyeen markay internshipka ku jiraan wasaaradda waxbarashada ee la geeyay meelaha fog ee gobolada iyo degmooyinka runtii waxa qayb ka noqotay arintaasi arrin wasaaradda waxbarashada tayadeedii kor u qaaday agaasimahan aad baan ugu mahadnaqayaa runtii dadaalkaasi iyo fikradaasi oo uu lahaa in internship la sameeyo shaqo qaran arrinta labaad ee runtii iyadana goob iyo madalo fara badan lagaga xusay agaasimaha madaxweynahana lagu amaanay waxa kamid ahaa xagga akhlaaqiyadka iyo disciplineka inay ka duwan yihiin difcadda shaqo qaran tii koowaad tii labaad iyo tii saddexaad iyo tan afraad oo joognaaba shaqaalaweynaha kale qaranka oo goobaha runtii shaqo ee ay joogaan laga dareemo akhlaaqiyadkooga laga dareemo yacni inay yihiin niman iyo wiilal iyo gabdho yacni ay ka muuqato inay shaqada waqti iyo time fara badan baa geliyaan marka labadaba runtii aad baan ugu amaanaynaa waana waxyaabo runtii lagu amaano hay'adda shaqaalooyinka waxay wadaa cilmi baadhis ku saabsan saameyntii barnaamijka shaqo qaran uu shaqaalaha qaran ku yeeshay runtii anigu aan ka hor dhacaynin barnaamijkaasi laakiin waxyaabaha ka soo baxay ee la ogaaday waxa ka mid ah in goobihii shaqada wax badan ay ku soo kordhiyeen goobihii shaqada inay wax badan ku soo kordhiyeen gaar ahaan waqtiyadii hore shaqaaluhu waxay ku urursanaayeen caasimadda maadaama shaqo qaran gobolladii Soomaaliland oo dhan ay matalayso in runtii taasi ay keentay in ay fursad u helaan gobolladii iyo degmooyinkiiba inay helaan shaqaale daadajiye markaa hawlihii qaranku hayay wasaaradda fara badan oo runtii haya adeegga bulshada way ka mid tahay wasaaradda waxbarashada caafimaadka iyo wasaaradaha kale ee runtii haya waxyaabaha mujtamaca gaarkaas si toos ah u taabanaya ee adeegyada gaarka la bixiyo in la geeyo degmooyinka iyo gobolladii runtii waxay keenaysaa in la helo dad aqoon iyo karti iyo waayaragnimo u leh oo taasina ay kow ka tahay in la helo
dadkaasi oo idinku aad ka tiidin marka arrintaasina waa runtii arrin aanu wadno researchkaasi hordhiciisuna runtii uu yahay wax lagu ammaanayo madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi iyo agaasimaha guud ee barnaamijkan muwaadinkaba oo runtii dadaalka ay geliyeen yani ay mudan yihiin in lagu ammaano hay'ad shaqaalahan annagu runtii door weyn baan ku leenahay barnaamijka shaqo qaran doorkan ku leenahay waxa weeyaan 3 area kow markaad graduate garaysaan ama aad qalin jabisaan in runtii la idin qaybiyo wasaaradihii la idin ku qoro la idin shaqaaleysiiyo waa doorka ugu weyn ee runtii hay'ad shaqaalo ay ku leedahay taasina runtii waxa u dhacdaa hanaan hay'ad shaqaalo ay u dejisay oo ah in dib loo eego fiilashiini iyo macluumaadkii nooga yimaanaya xafiiska agaasimaha kadibna la eego qof kastaaba fiilka uu bartay iyo waxyaabaha uu bartay si loogu qoro wasaaradii markaa qofkaasi runtii uu ka shaqeyn lahaa su'aal ahaan dadka caafimaadka bartay in caafimaadka la geeyo dadka takhasuskoodu yahay xisaabaadka iyo maaliyadda iyo waxa ku takhasusay wasaaradda maaliyadda la geeyo marka runtii wasaaradaha saa ugu kala qaybino oo ay u noqdaan shaqaale qaranka ku soo kordha oo hela xaqi iyo xuquuqdii ay ku lahaayeen si taas loo helo waxa loo baahan yahay markaa inaad ogaataan oo daristaan oo wax ka barataan xeerka shaqaalaha dawladda oo maanta xubin kasta oo dufcadda afraad ka mid ah meesha madasha fadhidaaba koobi ka mid ah uu haysto mudane agaasime koobigaasina aan jecel lahayn inay soo akhriyaan waajibaadka lagu leeyahay iyo ka qaranku uu ku leeyahay intii ku khuseysayna runtii khubarada ka socotay hay'ad shaqaaluhu ay idinla wadaagtay su'aalihii aad hayseenna runtii ay maskaxdiina ka guuxayna aanu idinka jawaabnay waxaan rajaynaynaa barnaamijka tacabkii galay inaad ka mid dhalisaan waxaan rajaynaynaa in akhlaaqiyadka iyo sharafta idinka muuqata aad la tagtaan goobaha runtii shaqada waxaan idinka rajaynaynaa runtii inaad qaranka ku soo kordhisaan horumarka uu yani higsanayo inaad qayb ka ahaataan ku soo kordhisaan shaqo qaran runtii waa barnaamijyada lagu ammaanayo madaxweynaha kuna faano taas waynu ka wada madha dhalin doonaa insha Allah sanooyinkii ugu dambeeyay madaxweynuhu wuxuu go'aansaday in shaqaaleysiinta oo kaliya ay marto barnaamijka shaqo qaran marka taa macnaheedu waxa weeyaan inaad nasiib iyo fursad aad u heshaan aad dheertihiin marka kumanaanka kun ee jaamacadaha ka baxa haddaad aragto baahida shaqo la'aanta ee waddankeenu runtii aad bay sanadba sanadka ka dambaysa u sii kordhaysaa laakiin maanta stage-ka idinku joogtaan waxa la hubaa 100% bilo yar kadib inaad noqon doontaan shaqaale weynaha qaranka marka inaad la timaadaan akhlaaqiyadka iyo kalsoonidaas runtii waan kula dardaarmaya waxaa jira guddi dufcadiina ka horeysay markii la shaqaaleysiinay aan ka wada shaqeynaynay oo runtii aad niman kartin badan ay ku jireen oo runtii ku amaanayno waxyaabahan uga baahano shirar badan aan wada galnay mararka qaarkood waxa imanaya mararka qaarkood oo gunadu yara raagto oo loo baahan yahay samir iyo dulqaad runtii iyo mushaharaadku markay yara raagaan oo kale in samir iyo dulqaad loo baahan yahay si xogta loo gaarsiiyana maadaama shaqo qaran aan la wada gaarsiinayn waxaad idinku ma rajaynayaan inaad leedihiin guddi marka guddiyadaas aan la kulmi jirnay niman runtii aan amaanaya bay ahaayeen oo macluumaadka naga qaadayaan sida ugu fiican u gaarsiiya runtii dhammaan shaqo qaran idinkana saasaan idinka rajaynayaa midharka ku jira ee social media wax ku qorqora baraha bulshada dadka ka aflagaadeeyana way kooban yihiin runtii marka loo eego numberka faraha badan leh laakiin xeerkan baa maanta idin sheegaya waajibka idinku leeyahay iyo ka anagu idinku laanay ka idinku leedihiin oo idinka reebay waxyaabo fara badan siyaasaddu idinka reebaya aflagaadadu idinka reebaya dhaqan xumadu idinka reebaya caydu idinka reebaya waxyaabahaas oo dhan qofkii ku kacana shuruudaha iyo sida loo anshax marinayaan buugay ku qoran tahay